Markii Xaaji Banaadir waxbuu ku fakarayay inuu sameeyo wanaag iyo muslimnimo iyo dad walaalo ah inuu isku soo dhaweeyo oo dhexdooda islaax beenaas oo ka dhaliyo, laakiin maxaa loogu jawaabay? Subscribe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdisaaq Xaashi. Haddii aad la socotaan muuqaalkii hore oo aad soo daawan, hadda soo daawo marka labaad, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan aad like saarto, siina sheergado, ummadda Soomaaliyeedna aad gaarsiiso. degdeg channel waa YouTube cusub, fadlan subscribe saar oo igu dhiirigeli maadaama aan ahay walaalkaas Soomaaliyeed shanta gees calanka buluugan oo naga dhexeeyo. waxaan ku leeyahay qadari dhac ku sii. Okay, aan isku soo laabano. maalin dhaweyti magaceeda waa qalday, Muna Xafiis ayaan dhahaa, laakiin ma aha magaceeda rasmiga ah, waa Muna Muhiim. Okay, muhiimadaada ka raacayna hadalkaba. Muna mar kale dagaal cusub ayaa ka dhex qaraxay markii Xaaji Banaadirna waxaa lagu haystaa wax kale maahan, waa islaax beenaas dad dhargay oo mataqaanaa iyaga dhanba wareersan ayuu dhexda u galay oo damacay inuu xaliyo si muslimnimo ah cuqdada ka dhex saaro, laakiin uusan filaynin ayuu lagu halagalay. bal ildaa muuqaalkan. Daan u baahanahay xaflad marka Xaaji Banaadir leeyahayna London meel walba ay ka dhacday waa tagi lahayn ka rogo laba saar maadaama xawa samaysanaysay inaan garab istaagno. annagii waxa joogno burukiyerka adeeg waxa noo soo diray marka Xaaji Banaadir adeegaasoo ah inoo heshiisiin fidiyo laba koox oo heshiisiyo. markii anigana markii hore markuu gurigeyga iigu imaanayay talaadadii uu yimid waan u sheegay, waxaan ku iri boog xanuun badan meeshan ka jirtee cidna ma heshiisiin kartide markii uu ka joog. hadda been sheegayna videogan markii loo geeyo waa fahanteeno. marka wuxuu rabay inuu dadkan heshiisiyo labadan koox. Okay, markii hadduu rabay dadka inuu heshiisiyo muxuu ku muteystay aflagaadada? waay islaax beenaas waday, yacni dadkan waa dad riwaayado ama filmo ama heeso wax ka dhexeeyaan. marka Xaaji Banaadirna waa nin marti ah oo abwaab Soomaalida waddanka ku cusub oo yacni ku yimid martiqaad. haddii uu damcay inuu xataa gurigaaga kuugu yimid oo damcay inuu heshiisiin keeno, waa maxay qaladkuu leeyahay? haddii dhinacaas diidaan iyo haddii adinka diidaan, dee marka qofna qasab kuma lahan, waa islaax beenaas. wuxuu rabaa asagoo wanaagiina keliya, laakiin dad fahmi weydeen. markii muxuu qalad ku yeeshay? marka ku soco hadalkeeda. wuxuu Manchester ugu ballamiyay heshiisiin markiyo dad maadan heshiisiinaynin, dad baa midiyo isugu dhiibaysa. haddaan ku dhahaa anigoo Muna Muhiim. Okay, waan kuu sheegay marka hore xafladda intayna dhicin talaadadii aniga waa isla joognay, waxaan ku iri dadkan ma heshiisiin kartid, waa diiday. dada ayaga rabi inay heshiiyaan labadana heshiiska naagooda. marka Xaaji Banaadir heshiiska ma goodo. tusaalaan ku soo qaatay, aniga ajaas dagaashan, haddaana aniga riwaayad ka cafiyo, adina aad riwaayad ka cafiso, haddii labadana qof Ilaahay dadtiisa u samraynin, marka Xaaji Banaadir dadtiisa miyaa qasab ku imaanaa? ma ku imaanayo. daas ilma ma tihiin, ilma yar ma tihiin. intuu dhinac siiso waay, dad waaweyn tihiin oo guryo dhaqanayo, caqli leh, magaalo joogo, wax qabsado, adduun mar jooga. heshiisiinta adinka naga go'da inay jiidaan, adinka naga go'da. laakiin hadduu qof walba ku soo talagalo inuusan heshiis qaadanin, markii Xaaji Banaadir maxaa loogu marsiyoonaa? marka ku soo arinta waa ku soconaynaa muuqaalkan hoose wadana. Manchester markaad nagu ballamisayna oo heshiisiinta aan ka diidnay, go'aan maxaan ku gaarnay inaan xafladda tagin? sax annaga aanan tagin, adigoo weli dhehaysid biliis imaado. maxaan ku dhahnay xafladdaas ma tagayno, yaa diiday annaka. markii videogayga loo geeyay hadday been tahayna ha yiraaha been waay. markii hore aniga waa kuu sheegay dadkan bal nin dhan oo aabaheed camala aa ka codsaday inay xafladiisa timaado oo yiri kaale ii imow maxay ku diiday? maxay ku xumaysay?
dadku kula dagaashanaa miyaa maya ma ahan bis dadkaas ayaa xafladda qabaqaabinayay intaas waaye haddii xushmad u heedo markii u tegi lahayd xafladdii u tegi lahayd haddii heshiisiirtana way qaada lahayd heshiisiis maayo ma aha adigaan labada dad isku ballamisay ma aqaan waxaa ka wada marka dabkan oo dhan waxaa shiday oo waxaan isku keenay oo erayadan beledka ka dhacooyo in micnaha oo xaawakiin lagu aflagaadeeyo laki lagu aflagaadeeyo waxaa ka dambeeyey Maki Xaaji Banaadir sababtoo ah dadka asagaa xagga ku wada ballamiyay Maki Xaaji Banaadir hadduu xaawakiin iyo laki heshiis ka codsaday oo muhiim heshiis ka codsaday oo dadka kale heshiis oo la geli lahay oo la heshiisi lahay ay diideen ama kuwa ay diideen Maki muxuu keenay Maki maskiin martiya waaye reer London ku go'ay dad bac weyn oo xaala la wareega dhexda kala Maki Xaaji Banaadir dadoo midiye isugu dhiibay anigana markii hore waa u sheegay Makiyow xaflad ma adin naga soo ceerisay annaga mise naaga naga soo ceeriyay ilaahay ka baqaso ka xumaay taas wallahi Maki Xaaji Banaadir waxa ku dhacay wax uu samarno filinin dad waaweyn oo mooday laakiin maxaa qabsaday hadal ana kula hadlooy mise xafladda annaka diidnay inaa imaano markaan heshiisiinta ka diidnay macnaa Soomaalidu warka way qarqarisaa Makiyow haddaa wadiideen xaflad waxa aad doontaan ama qalad aba haddii kuwii kale lahayn waa naga soo ceerinina ay kale way khaldan yihiin laakiin meesha waxa ku gacan galay oo ku dhibaatooday oo la wareeriyay waa Maki Xaaji Banaadir waxaan dadkan dhan abaashada banaanka u soo baxno fanaaniin qiimo iyo qaaya leh sharafta ka dilin maadaama aad tahay nin abwaan soo hadal dee aamusin waxa waay macnaha hadduu dhaho waa heshiisiina وأنا هجسينا وعلمي مسلمو أخوني خيمة دلي الصومالية دقال جعلها موسين سو هذا أنا ما ديدني مس حفلة ضد أنا سو إرسدي صورندي هديك الأنا هديك هاي بابا Maki Xaaji Banaadir wixii qabsaday wuxuu raadinayay islaax bayna naas iyo Soomaalinimo iyo Muslimnimo laakiin odayga waxaa loo diray beerta dhexe halkaasna wuxuu ku muteystay aflagaado iyo dagaal iyo wax uu asaga shaqo ku lahayn intaasna waxa uu geeyay inuu jecel yahay heshiisiinta dadka fanaaniinta ah dhexdooda inuu heshiisiyo dagaalkaana waa dareemi kartaa wuxuu ka dhexeeyaa waa kooxda Mahdi horkacayo iyo kooxda muhiim ee horkacayso baba waxaa leeyahay Maki Xaaji Banaadir waa loo go'day dad dargay oo caanaboorahooda u diyaarsan yahay oo buuqooda dagaalkooda u diyaarsan yahay dhexda ka gashay I'm sorry oo ka xumahay muuqaalka mar rabo inaan sii dheereeyo waxaan leeyahay Maki Xaaji Banaadir wixii ku soo gaaray waxweyn waay waa ka xumahay laakiin insha Allah waxaan rajeynayaa inay maalin heshii doonaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh